shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen gudoomiyaha gobolka Salal Cabdilaahi Faarax Meydhane maayirka degmada Saylax Xuseen Idla Barkhadle xogeyaha dawladda hoose Bashiir Cilmi Waabari taliye ku xigeenka booliska ee gobolka Salal Cismaan Xaashi iyo marti sharaf kale shirkan jaraa'id ayaa waxa ay kaga hadleen biyo la'aan ballaaran oo saameysay gobolka Salal gaar ahaan deegaanka Laagta Murahda sidoo kale waxa ay baaq u direen dawladda Soomaaliland baaqaas ayaa waxa ka soo jawaabay musharaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga Ucud Cabdirashiid Xasan Mataan sidoo kale waxa ay mahadnaq ballaaran u soo jeediyeen musharaxa madaxweyne ku xigeenka Cabdirashiid Xasan Mataan waa kuwan iyagoo ka hadlaya arrin deegaankani ku nool degmada Saylax iyo Looqaya inta gobolka Saylax leeyahayba waxa u baahan mar walba qofka bilaabka hadduu u baahan yahay laba litir maalintii iyadoo waxay u baahan tahay waa 3 laab waayo dhul xagaaga xafiba ka dhacaya sida ilmiga ka dhacday laanta Murahda leh oon cilaaminay bisha 20keedii bishii Juun ee dhamaatay ilaa maantana dhibtu halkeedii bay taalo oo wax qabanay ma jiro waxa marka laga tago biyo dhaamista ee dawladda hoose samaysay waxaan ka codsanaynaa dhammaan walaalaha ehel khayrka ah ama dibadda joogo ama gudaha jooga ama dawladda ama hay'adaha aado inay gurmad degdeg biyo dhaamista loo sameeyo gudoomiyaha deegaanka ayaa dhameeyay xaaladda bisha ka taagneyd Cabdirashiid Xasan Mataan ee gudoomiyaha ku xigeenka Ucud ah ninka madaxweyne ku xigeenka Ucud ah oo isagoo Kambaale jooga markii uu arkay baahida iyo website-da uu arkay damiirkiisu siiyay inuu dadka wax u taro dhibaataysan halkaana lacag uga soo diray lacagta uu soo sheegay gudoomiyuhu $700 oo maanta iyo bari lagu cabi karo ninkaana mahad baan ugu celinaynaa waa nin damiirkiisu siiyay waa nin wax garada aad iyo aad baan leeyahay waxaas wax ku yaala leeyahay isagana Cabdirashiid Xasan Mataan waa nin siyaasi ah waa nin soo Kambaale jooga ayuu website-ka ka arkay maartay gurmadkii aan weydiisanay mahadnaq weyn oo walaaltinimo ya ayaan maartay isagana u haynaa maadaama musharaxii uu yahay maartay xisbiga maartay Ucud uu yahayna musharaxii madaxweyne ku xigeen maxaan ku raacay abaalkiisa kulli waxa la ku dhacay ma in wax loo haynayo weyn kaasi sidoo kale waxa ay qayladaan u soo jeediyeen qurba joogta gobolka Salal Yaasiin Xasan Habiib Kalsan TV Saylax